marar badan ma is aragtaa adiga oo ka caajisay inaad wax akhrido ma ka gaabisaa inaad dhammaan wada koobto hawlahaagii maalinlaha ahaa ee mudnaa inaad muhiimad siiso ma ku wareertid dejinta jadwalkaaga wax akhris su'aalahaas iyo kuwo kaleba waxaan kaaga jawaabi doonaa muuqaalkan waxaanan kula wadaagi doonaa dhowr tallaabo oo aad gebi ahaanba ku bedeli doonto jadwalkaaga wax akhriseed waxaana barnaamijkan idiin daadihinaya walaalkin Jimcaale Hindise daawasho wacan qorshaha wax akhrisku waa hanaan habaysan oo aad u dejinaysa dhammaan casharradaada iskuul iyo jaamacadba hab joogto ah adiga oo xiisad walba siinaya waqti gaar ah oo aad ku qaadato akhrinteeda haddaba raac 60 tallaabo oo noqo mid mar walba kaalinta koowaad ka gala fasalkiisa tallaabada koowaad yeelo ujeeddo cad ugu horreyn waxaad u baahan tahay inaad xadido ujeedka aad wax u akhriyayso ma inaad imtixaanka ku baastaa mise inaad garaadkaaga ku kubciso korna ugu qaado maxaa yeelay haddii aad niyadda wanaajiso inta kalena way hagaagaysaa tallaabada labaad samee jadwal maalmeed aad hawlahaaga oo idil ku koobaysid taasina waxay ku geynaysaa tallaabada saddexaad deji jadwal wax akhris waxaad ogaataa markaad dejiso jadwal maalinle ah inaad dejisay jadwalkaagii wax akhris maxaa yeelay waxaad habaysay oo aad toosisay noloshaadii oo dhan oo aad xisaabisay minute walba oo noloshaada ka mid ah inaad samaysatay xisaabtana ku darsatay saacad ama 30 minute oo wax akhris ah tallaabada afraad yeelo waqti nasasho ah waxaa suuragal ah inaad ku daasho akhrinta muddada saacadaha ah qaadata haddaba waxaad u baahan tahay inaad laba akhrisba u dhaxaysiiso waqti nasasho oo qaadanaya 15 ama 20 daqiiqo si aad u dareemin caajis iyo niyad jab dhanka wax akhriska ah tallaabada shanaad joogtee go'aankaad qaadatay inaad joogtayso jadwalka wax akhriska waa arrin muhiim ah isku day inaad raacdo jadwalka maalin walba qabatana hawl kasta waqtigii aad u qoondaysay qabashadeeda tallaabada lixaad samee isla xisaabtan wiigle ah ama bille ah si aad ugu baraarugto khaladaadkii ka dhacay intii aad shaqada ku jirtay lixdaas tallaabo ayaan jeclaystay inaan idinla wadaago maanta saaxiibayaal si aad u kobcisaan garaadkiina noqotaana kuwa hawl walba u qabta sida ugu macquulsan insha Allahna muuqaalkan xiga waxaanu ku soo qaadan doonaa muhiimadda iyo faa'iidooyinka uu inoo leeyahay arday ahaan wax akhrisku waa walaalkin Jimcaale Hindise oo idinkaga tagaya assalaamu calaykum wa rahmatullaahi ta'ala wa barakaatuh